بسم الله السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الكسود وهذا الشانل كسويال كميدي يقول بدن وين ما انت وحي كليهين مدحوين فرماتشو لقد البدينو دحدحادي مدحدا مصر إثيوبيا أحمد مدوبو دلعسي تليدي الشرقول الدولة الفدرال كلا دمع سنايد دولة الصومالي وكفكريس حيرات ودمدا لغا هلك كورونا فايروس انكاسي ورك دبدن waxa kamida afar qof oo lagu dilay weerarka dhacay Gaarisa daawad intaasna waxa ay qodobadeen weerarkan ugu door koron magaciigu waa Maslax Nasiib fadlan hadaan ugu cusubtahay channelkan subscribe inoo saar si aad noo wadaagto wararkan iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo mahadsan aadna ku soo dhawaada warkii faahfaahsan dawladda Itoobiya Masar ayaa waxa u dhaxeeya xiisad ka dhalatay biyo-xireenka ay dawladda Itoobiya dhisatay waxaana dhawaan fashilmay wad hadal lagu dhameyn lahaa xiisad biyo-xireenka ka dhalatay oo la filayay inuu ka dhaco dalka Mareykanka madaxweynaha dalka Masar Cabdifataah Xasiisi ayaa qoraal u soo diray madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo dalbaday inuu dhexdhexaadiyo xukuumaddaas Addis Ababa iyo Qaahira maadaama labada dhinac xiriir dhow leeyahay kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda Masar ee arrimaha Afrika Abubakar Xifni oo warqadda madaxweyne Siisi soo gaarsiiyay Farmaajo ayaa sheegay in khilaafka labada dal u dhaxeeya uu gacan ka geysan karo xeeladda madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay kaaliyaha in webigaasi Niil ahmiyad weyn u leeyahay dalka Masar kuna tiirsan yahay webigaasi waxa uu sheegay haddii webigaasi dhibaato u keeno biyo mareenka webiga Niil ay saameyn doonto nolosha dadka Masar madaxweynaha Soomaaliya ayaa xiriir dhow la leh madaxda wadamada Itoobiya iyo Masar lamana oga saameyn uu arrintan ku yeelan karo madaxweynaha Soomaaliya ayaa gacan ka geysan karo xalinta xiisadda labada dal u dhaxaysa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa maanta dalacsiyay taliyaha ciidamada daraawishta maamulkaasi ee ka howlgala degmada Afmud ee gobolka Jubbada Hoose Axmed Madoobe ayaa maanta oo Isniinta gaashaanle Maxamed Islaam u xiray darajada gaashaanle dhexe kadib markii Jubbaland ay shaacisay inuu diiday qorshe ay ku sheegtay shaqoon iyo afgambe la damacsanaa dowladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale saraakiishii ciidamada maamulkaasi ula dardarmay inay daacad u noqdaan shaqada adag ay u hayaan shacabka dhawaan ayay ahayd markii muuqaal laga soo duubay taliyaha degmada Afmud Maxamed Islaam oo kaga hadlayay sheeko uu ku tilmaamay inay dhaxmartay isaga iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan taliyaha hay'adda nabad sugidda ee Soomaaliya xiisadda dowladda federaalka iyo Jubbaland ayaa u muuqatay inay soo xoogaysanayso mar ka dambeysa taasoo ka soo bilowday doorashada muranka badneed dhalisay ee dib loogu doortay Axmed Madoobe isla markaasna dhacday sanadii la soo dhaafay 2019 hay'adaha dawladda rayidka ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ka baarandegayso in go'aan dhinaca socdaalka laga qaado dowladaha Itoobiya iyo Kenya iyo Darisla Soomaaliya maadaama labada wadan laga helay cudurka corona maarayaha hay'adda dawladda rayidka Soomaaliya Axmed Macalin oo la hadlayay idaacadda VOA ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay uga hortagaan cudurka coronavirus si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliya waxa uu sheegay inay maanta yeelanayaan shir degdeg ah oo hadlayaan waxa xiga maadaama shalay xayiraad saareen dadka imaanaya afar dal oo wax ku ugu daran oo coronavirus saameyn ku yeeshay dhanka kale waxa uu sheegay inay si weyn uga fikirayaan xayiraad saaraan dadka imaanaya dalalka Itoobiya Kenya oo cudurkan laga helay balse aysan ku degdegi doonin maadaama ay weli ku cusub yahay wararka ka imaanaya gobolka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in afar qof ay ku dhinteen kadib markii qarax lala beegsaday baabuur ambulance oo xilligaas siday bukaano qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Ijaara haddaba Maxamed Faarax oo qarax faahfaahiyay hadaladiisa waxaa kamid ahaa waxa uu qaraxani ka dhacay deegaanka Koronhindi oo ka tirsan county Gaarisa deegaanka Haluuqo waxayna ahayd xilli shaqada caadiga ah wasaaradda caafimaadka ee county Gaarisa ay ku guda jirtay gaari ambulance oo ay saarnaayeen tira ilaa haatan aan la sii cayimin ayaa ilaa afar qof ilaa saddex qof inay ku dhimatay haatan loo xaqiijiyay deegaankaasi wuxuuna ahaa qarax si toos ah loola beegtay gaarigaasi xisaab fara badanna waa lagu furay dadka deegaankuna halkaasi haatan cabsi fara badan ay ka muujinayaan qaraxan ilaa haatan ilaa wareegyada degdega ah ee laanta Soomaaliya VOA ay helayso waxa ay sheegayaan in qarax uu ahaa mid lagu aasay meel dooxa ah oo gaarigaasi ambulance-ka ay bukaanka waday uu dusha ka maray marka uu dusha ka maray qaxayna xisaab ayaa la sheegay in markaasi lagu sii daayay taasoo keentay in dadkaas aan soo sheegnay ee 3 iyo 4 labaduba ilaa haatan la xaqiijiyay
xaqiijinayo deegaankaasna uu yahay deegaan inta badan warbaahintu iyo weliba ay ka go'on tahay xiriirka dhanka teleefanada ilaa haatan ay helaysa VOAda in darawalkii gaarigaasi uu ka mid yahay dadka halkaasi markii u horreysay ku dhintay. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkeena warkan warka xigeentaa ku midano waxaan kaga tegayaa sidaas iyo ammaano Allah.